بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. barnaamijkeena caawa barashada sida lacagta loo sameeyo online-ka ama internetka lacagta looga sameeyo. waxaan rabaa horta marka hore si yaroo hordhaca inaan uga raaligeliyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastay dunida ka joogaan 5 dayskii ugu dambeeyey fariimaha whatsappka igu soo dirayay raalli ahaada. whatsappka taleefonka fariimihiisa iyo soo wicitaankiisa waxaa ka fiican emailka aan meesha ku qoray haybahousingsolution@gmail.com ama lettings@haybahousingsolution.ltd.com. fadlan wixii email ay ii soo dirtaan jawaabtooda waan idiin soo dirayaa, laakiin cajaladaha dhegaysta. cajaladuhu waxay ku jiraan facebookgayga, facebook page-ka ayaa cajaladaha ka helaysaan. haddaa facebookga weyn ka weydaan facebook page-ka gala, habiil cabdi haybe wey facebook page. haddaan dib ugu noqdo markaa barnaamijkeenii waxbarashada sida lacagta loo sameeyo, walaalayaal anigu cajaladahana idiin soo gudbinayo lacag idinkagama rabo. waa ogtihiin cajalada markaad daawanaysaan free baa ku daawanaysaan. waxaan idiin soo gudbinayna waa aqoon iyo waayo aragnimo 20 sano aan ku lumiyey oo aan ku qaatay inaan fahmo systemka IT-ga iyo qaabka loogu shaqaysto, ama waxbarashada caadiga ha noqoto ama ha noqoto online entrepreneur inaad noqoto qof isagu iskii u shaqaysta oo self employed ah. waxaa weeye 40 nooc oo lacag samaynta qaabka lacagta loo sameeya ayaa jirta. anigu 40 nooc baan kusoo koobay, laakiin in ka badan 1,000 nooc bay noqon karaa, laakiin 40 baa ugu waaweyn. si aad lacag u samayso marka hore waa inaad aqoon u leedahay waxa aad lacagta ku samaynayso iyo qaabkaa u shaqaynayso. taas weeye ta anigu aan idinka caawinayo. waxaan barnaamijkan u sameeyey ummadda Soomaaliyeed ee aan fahamsanayn dunida maanta globalka ah ee digital world, digital marketka ama suuqa lacagaha lagu kala helayo ee ku yaala nidaamka globalka ah internetka ku jira. si markaa aan wax u fahamno, qof kastana uu maaragtay uga bogto barnaamijka. haddii cajaladu ay over 12 minutes noqoto waa joojinayaa barnaamij, cajalad kale idiin soo duubaya. waxaan rabaa markaa horta inaan soo koobo 3 qaybood, maadaama 40 nooc lacagta loo sameeyo iyo ka badanba, laakiin aniga 3 qaybood baan rabaa inaan horta marka hore kusoo koobo. 3da qaybood ee ugu waaweyn waxa weeye marka koowaad in aad noqoto qof suuqa wax kala iibsiga iyo xayeysiinta ee loo yaqaano affiliate marketing. affiliate marketing ama digital marketka in aad horta noqoto qof diyaar u ah inuu fahmo ama fahamsan. taas weeye ta ugu muhiimsan ee aan rabo casharada soo socda, weliba dhowr iyo 10 cashar ee soo socda inaan idin fahamsiiyo. taas waa qodobka koowaad oo ah affiliate marketka. qodobka labaad waxa weeye social mediaha facebook ha noqdo, youtube ha noqdo, instagram ha noqdo tiktok ha noqdo. nidaam waxaa jira social mediaha aad uga faa'iidaysan karto adiga oo aan waxa xun iyo waxa qabyaalada iyo dagaalka iyo buuqa ka sheekeynaya waqti ku luminin. adigu aad social media platform ka dhigan karto. platformkaas oo ah inaad waxna ka barato
waxna gashato. taas waa social media, waa secondka. adigoo isticmaalaya affiliate marketka ayaa social media wuxuu ku noqonayaa suuqii aad ku gudbin lahayd waxaa u baahan tahay. ta saddexaad waxaa weeye nidaam loogu talagalay systemka maaragtay advertisementka ama googleka ama ha noqdo wadooyin fara badan oo inta badan dadku youtube-ka isticmaalaan, laakiin waa nidaam aad adigu wax gudbinayso. adigu intaa wax iska duubto sidaa iminkaan kale aan idinku soo gudbinayo, tan waa casharo aan idinku wax idinku baraya, laakiin ka kale wuxuu noqonayaa dhul qurux badan oo soo sawirto, cajalad fiican oo qurux badan oo aad haddaad dumarka oo kalaa isticmaala intay duubaan ay ku tusayaan dadka qaabka cuntada loo kariyo waxaanus oo kale. kaas marka waa waxaad iibinaysaa nidaam aad dadka ka iibinayso, systemka aad u gadayso waxaan aad samaynayso aqoontoodii. marka haddaan ku soo noqdo barnaamijka markaa lacagta samayntiisa iyo qaabka aad u bilaabaysid, qof kasta wuu isweydiinayaa halkee ka bilaabaa. kow, markii hore waa inaad haysataa internet access, laptop ama desktop computer ama laptop. the best way or easier way oo aad lacag ku samaynaysid naftaadana aad shaqooyinka kale iyo waxyaabaha kale ee aad qabato ee noloshaada inta aad halkan lacag fiican uga helayso aad waxaaga u wada karto, waxa weeye online digital marketingka. the best way 30 cisho oo soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa bisha soo socota casharada ugu sahlan ee aad ku baran karto qaabka lacagta loogu sameeyo online. haddii aan for example tusaale soo qaato, qaybta koowaad ee ugu sahlan waxa weeye in aad ka samayso lacag ilaa 200 ama $100 ilaa $1,000 oo daily ah, maalinla ah, adiga oo isticmaalaya nidaamka youtube-ka oo maahan youtube-ka la raadinayo viewerska maaha, waa nidaam kale oo affiliate marketka la isticmaalayo oo short videos ah ku gelinayso iyadoo oona waxba ku koosgarayn. cajalad yar ayaad waxaad ka soo gadanaysaa meelaha cajaladaha lagu iibiyo, adiga ma duubaysid. cajaladaas waxaad gelinaysaa systemkaaga, which anigu aan kuu dhisi doono, qaabka aan kugu dhisi doono gadaal bay ka imanaysaa markaa 1-to-1 ka gaadhaan. cajaladaas waxay noqonaysaa lacag yar oo $7 oo kale ama $5 ah, ama mida adigu iska duubtayba ha noqoto, inaad gashato systemkaagii marka uu noqdo system adigu aad waxaagii u gudbinayso nidaamkan youtube-ka oo kale ama nidaamka facebook, ama adigu adoon ogeyn waxaagii markaad geliso systemka aan linka kugu samayn doono account-kaaga wuxuu kuu sahlayaa adoo iska jiifa qof baa daawanaya dhag $1 baa kusoo dhacaysa, adoo iska jiifa qof baa cajaladii kaa qaadanaya oo meel gashanaya $12 baa kusoo dhacaysa, adoo iska jiifa qof baa cajaladii promotion kugu samaynaya wuu kuu xayeysiinaya $15 baa laga yaabaa inaad xayeysiintaa keliya ku hesho. qaabkaas waa qaabka horta koowaad, waxaana la yidhahaa launch jacking-ka english launch jacking baa la yidhaha. ama cajalada aad leedahay ha noqoto ama cajalad dad kale ay leeyihin ha noqoto oo permission aad haysato inaad gaddo ama aad promotion ku samayso, lacag yar baa la siiyaa. waxaana laga qaataa website-yo caana oo aan gadaal idinka bari doono qaabka cajaladaha loo soo qaato. kow, taas waa ta koowaad. ta labaad waxa weeye in aad digital product waxa weeye waxyaabaha dadku ay diyaarsadeen ee lacagta siinaya inaad gadato adiga oo digital productkaas aan adigu soo diyaarin iyagu diyaariyeen. waxaa laga yaabaa kan waa ka ugu badan ee lacagta laga sameeyo maalintii rag baa $1 milyan ka sameeya
laakiin waa dad 10 sano dhowr iyo 10 sano kasoo shaqaynayay systemka oo waxaana si fiican u yaqaan. kaas digital assetka oo leveraging la yidhaahdo, digital assetku waa ka ugu lacagta badan la dunida, dadka dunida ku nool oo dhan baana sameeya ee online-ka systemka wax ku iibiya. kaas markaa wuxuu kuu sahlayaa marketka dunida inaad gasho oo fahamto qaabka u shaqaynaya systemkiisa. waxaas anaa kuu qaban doona qaabkaa u qabanaysid iyo qaabkaa waxaan u nidaaminaysa. waxaasoo dhan anigu ma helin qof ii sameeya, laakiin markaan bartay ee waqti ku lumiyey waxaan helay qaabka dadka loogu gudbi karo. taasna anaa ku haya. ta saddexaad waxaa weeye google-ka. google automation wax la yidhahdaa jira, dadku ma yaqaanaan inta badan. waxaa weeye systemka ugu sahlan ee aad maalintii $1,000 ilaa iyo in ka badan wadkaanaysay $5,000 aad ku samayn karto waa google automationka. google automationka gadaal baan idinka sharixi doonaa, wuxuu u baahan yahay faahfaahin dheeraada. waa nidaam google-ka aada isticmaalayso oo 3 qaybood ah, laakiin marka hore waa inaad haysataa account-kii iyo nidaamkii affiliate-ka uu kuu dhisan yahay. systemka google-ka aad taqaano qaabka aad u gelinayso systemkaa. taana 1-to-1 markay gaadho qof kasta nidaamkaa anaa u dejin doona oo bari doona haddii alla yidhaha insha allah. jalada xilligii aan gabagabayn lahaa bay joogtaa. casharada dambe waan si fiican ugu sii faahfaahinayaa markaan gudaha gelayno cilmiga iyo qaabka aad u operate garaynayso iyo meesha aad ka bilaabayso waxoo dhan. waxaan kusoo gabagabaynayaa fariin aan u diraya dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastay dunida ka joogaan. waxaan barnaamijkan u bilaabay waxa weeye in qof kastoo soomaali ah in uu ka baxo baahida lacagta isagoo dunida meel kasta ka jooga. haddaad tahay qof dhalinyaro ah iyo haddaad tahay qof weynba, you can do it, waa samayn kartaa. waxaa keliya ee lagaaga baahaya waxa weeye internetka inaad access u haysato, laptop ama desktopna aad haysato. mobile kama shaqayn kartid. laptop ama desktop, computerka miiska fuula ama computerka gacanta lagu qaato ee laptopka loo yaqaan, labadaa mid waa ina haysta. internet fiicanna waa ina haysta. most of the world maanta soomaalida dunida ku nool, xitaa soomaaliya number 1 weeyo internetka accesska ay haystaan, laakiin lagama faa'iidaystay. waxaa lagu mashquulsan yahay reera islaynaya iyo reera calama samaysta iyo dhiig la daadinaya iyo qabyaalad iyo in idaacadaha la iska caayay iyo waxaasaa lagu mashquulsan yahay. gabagabadii waxaa kusoo gabagabaynaya anigu waxaan ahay waa adeegaha shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan, madaxweynaha shacabkaan ahay. waxaana ka shaqaynayaa qof kasta oo soomaali ah inuu helo wax noloshiisa ku filan ama ka badan oo ah income soo gala. waqti dheer waxaan ku lumiyey sidaan u fahmi lahaa qof kasta meesha aan ka gaadhsiin lahaa iyo qaabkaan wax u gaadhsiin lahaa. hadda ilaahay mahadi weeye, ilaahay baa inoo saalay aaladaas inaynu isku aragno oo aynu iska daawanno oo wax walba isku soo sheegno. waxaan kusoo gabagabaynayaa marka shakiga iska saara. anigu dan dhaqaale oon idinka leeyahay ma jiro. waxyaabaha idinku iibsanaysaan oo aqoonta ah oo hadhowto lacag idinku hoosgaraynaya waa jirtaa. aqoontayda 1-to-1 markaad iiga baahantay inaan guriga kugu imaado ama aan ilmahaaga kuu tuso sida lacagta loo samaynayo, taana waad la baxaysaa, waqtigaygii baan ku siinaya. waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaa inoo ballana inaan is aamino iyo inaan wada shaqayno iyo qof kastoo inaad ka faa'iidayto programkaas. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.